قف كيسة حكي أفراد كيش أنا أدوين أدوين شدود تانك جواب كرب ما دود تانك جواب كان ما هذا المكرية قد ما هذا سنتين هذا لا نقدر نقول سومالي ما نقول مقع الصوماليات بانو دغنين اقلنا ما هين كلكو عادو ندل جوغا اسكا سو بخلين انا كنا وده كلالك شناد بانو دغنين مقع الصوماليات بانو دغنين dadka qof saddexaad ka dhiman mala dumarka darkiisii tiina wax gargaaro Soomaali ay wax nooga qabatay ma jirto soo magaca Soomaaliyeed baan u dhimanay magaca Soomaaliyeed baan ku dhinsanna waa ka baxay hadalkaadii dagaalka inagu dhac maalin saddexaad iyo dagaalka inagu dhac wixii dad maal iyo dadba way wada qurbaxeen naagaha dharka cad ragii laha way dhamaadeen sida kadalika wixii alla wixii baabuur yaalay maaragtay gaadiid yaalay hadduu 5 bilood yaallo baqtiisana waa la jiiday way qaateen wixii maal yaalina waa la qaatay dadka ilaa 200 ilaa 300 meelaha buu noqonaya naagta umusha ilmihii yaraaba saa looga jaxay sidii gaalka la saa looga jaxay iyadoo oor loo foola ayuu ilmuhu saa uga baxay ubadka yareera subaxii damba 2 bilood hamba 3 bilood gabadhii dusha ku siday mawdkii baan subaxii damba laga soo dhaxqaa hadda imika gabadh baan la ag joogto waa tayar ilmaha yar mawdkii iyadoo caga bidhoon iyadoo caga bidhoonaysa laga soo qaaday iyadoo dhowr waa tahay ilmaha yar mawdkii ka soo dhex qaaday uur 3 bilood ilaahay kuwa kale sida ama 9 bilood bay ahay gabadhu dusha ku ilmaha yar mawdkii baa laga soo dhex qaaday in badan oo ka soo dhex qaadnay baa jira hooyadii way dhimatay qoys waa la dilay oo ilmaha yar baa laga soo dhex qaaday ilmaha halka ka soo dhac kolka ma aragtay waxaad arkaysaa islaantii oo dhimatay odaygii oo dhintay ubadkii oo dhintay qoys dhan baa saa u dhamay bulshada ku dhaqan galbeedka gobolka City gaar ahaan deegaanada Dayn Dunyar iyo galbeed waa dadna nool naxdin murugo tiiraanyo ceel iyo hooskooy 2014 tirsiga reer Yurub waxa si joob loo hoosgeeyay deegaanka Canfarta waxaana xilligaas heshiiskaasi hormood ka ahayd dawladda TPLF waxaana gacan weyn ku siiyay taliskii xilligaas ka arrimi jiray deegaanka Soomaalida ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamuud Umar diinno iyo waliba in badan oo ay dadkaasi gaashaanka arintaas u daruureen waxa qasab noqotay in la hoosgeeyo deegaanka Canfarta tan iyo maalinkaasi shacabka halkaas ku dhaqan waxa ay la kulmayeen taadi xarig iyo waliba cagajuglayn 2018 afar sano uu kadib markii qasabka lagu hoosgeeyay deegaankaasi Canfarta golaha fulinta ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu qaatay go'aan oranaya dib ayaan uga laabanay go'aankii magaalooyinkaasi saddexda ah ee Garbaciise Cadayti iyo Cundufo lagu hoosgeeyay deegaanka Canfarta dhibaato diilo dhimasho iyo dhaawac iyo waliba weerar joogto ah iyo hujuum aan har iyo habeen toona lahayn ayaa bilowday dadka ku dhaqan galbeedka gobolka City waxa u bilaabatay xaalad ay ku jiraan colaad aan la garanayn xilliga ay dabayso ciidamada liyuga Canfarta oo gacan ka helaya koox argagixisa ah sida Agaagumo iyo TPLF ayaana hujuumkaasi soo qaadiyay sanadihii u dambeeyay dagaalada halkaasi ka dhacay dad ku dhow kun qofood ayaa dhintay in ka badanna way dhaawacmeen walina meel walbaba waxa yaala dhaawac aan bogsoon ee dadkaasi
waayo xibadaha ayaa meel halisa oo aan laga bogsan karin kaga dhacay dadka qaarkood dadka dhintay wali waxaa ka tiiraanya daran dadka dhaawacan waxa ay arrintaasi socotaba gulufka iyo weeraraduna ay maalin walba soo dhacaanba waxaa timid maalin kale oo muruga huwan magaalada Cadayti oo iyadu ka tirsanaa deegaanada dadka gobolka City u yaqaanin Dunyar ayaa gacanta la mariyay hantidii guryihii iyo dhammaan wixii halka yaalayna dawladda canfarta iyo shacabkeeda ayaa la wareegay dadkayna waa la laayay firxadkoogiina waxa uu yimid goobaha ay dadkaasi islahaayeen nabad ayaad ka helaysaan inta uu laguma joogsane waxa sii socday gumaadka waxay hareereen magaalada Cundhufo hase yeeshee dadka deegaanka ayaa iska caabiyay abaara dhacay awgood dadkii galbeedka gobolka City ayaa kala baahay isla markaasina baylahdooda iyo in ay abaarta ka soo reebtaan inta yar ee uga hadhay dunyadii abaartu ay xaalufisay ayaa keentay in deegaanka canfarta ciidamadooda Livi booliska loo yaqaano iyo kooxda agaagumo oo isgarabsanaya ay hujuum ku soo qaadaan magaalada Garbaciise ku dhawaad 2 bilood ayaa la go'doomiyay qayladaan iyo waliba nasoo gaara aad u tiro badan ayaa ka soo yeereysay dadka ku dhaqan magaalada Garbaciise mayna helin cid deg jalaq u siisa haday ahaan lahayd dawlad iyo dad u dhow intaba dadkii ku dhaqnaa Garbaciise waxa ay qayladaan diraanba waxa ay hoosta ka ooyaanba isla markaasina ay mar walba fishaan in la gowraci karo maadaama ay ahaayeen wanqool ugu xiran birti la mari lahaa dhibaatadii taagnayd waa la hasuuqay toobiyaba wixii Garbaciise yiilay waa la hasuuqay magaca Soomaaliyeed baa lagu hasuuqay qaalibaad la nooshiin magaca Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeed bay ku dham ya bartoodii iyo iyaguba ku dhintay dunyadoodiina lagu dhacay waa magaca Soomaalida waa magaca Soomaalida imanka dadkii badidiisii way nala socotaa wixii dhintana uu dhintay marka waa 2 biloodna waa sidaa sheego waan xidhnayn marka wax soo gala wax soo baxa midna ma jirin marka dadkan arquumayay inoo adeegaya hawaas magaca gawaani wax noogaga soo gurayay iyo ahaa 24 July sanadka 2021 waxa u bariyay waa mugdi ah oo muruga badan shantii subaxnimo ee maalinkaas waxay ku waabariisteen xibad dhacaysa iyo waliba ciidamada liyuga canfarta oo halkaas soo weeraraya weerarkaasi xilligii u dhacayna waxa goobjoog ka ahaa ciidamada difaaca qaranka roob la caatay gabad waxaan ahay degmadan Maayso qabalaha Garbaciise dhibaato badan ilaa 5 sano haysataa nagu haysata dhimasho u badan baa nagu haysata imikana 5 sano ka gobay ka soo gudubtay baa ka soo barakacno aan ka soo baxay degmada annaka imikana fadhina waxa dadeed arkaysiina meesha fadhiyo waa dadkii geeridu ku dhacay waa haweenkaas waa agasha cad wada intaan muuqatay in kale magaalada ku baasanba waa dad geeriyoon ninkoogii baa la dilay ilmeeyagii baa la dilay gabadhii iyo wiil waxay lahayd waa la dilay geeri dhibaato badan baa ku dhacday way wala geeriyaysan xirada dadka soo barakacay ee yimid umulihii ayaa la dooxay aruurtii ayaa la laayay dhammaanna gabanadii diriri lahaana hurdada ayaa lagu gaaday kaba darane dadkaasi ma haysan hub ay wax iskaga caabiyaan waxaan ka badnayn kutumeeyo qof oo difaac galay cagta ayaa la mariyay dhammaantoodna gowraca ayaa dhegta dhiiga loo daray ma odhan karo oo ma tilmaami karo magacdooda waayo inta u badan dadkaas waan kasayaa maalinkii oo dhan magaalada Garbaciise waxa ka socday xasuuq iyo xaalufin taasoo anagu ku tilmaamay isirbeegsiga ugu xumaa ee abid ka dhaca galbeedka City in ka badan 400 qofood ayaa la laayay oo u badan maati hooyada asayda qaaday iyo gabadha ooyeysa iyo sidoo kale hooyada gablantay intuba baroortoodu waxay noqotay mid aan afa ka soo bixin
waayo xilligaasi waxaa kor taagnaa cadowgii ku soo duulay oo marna sabaalinayay marna siligada ku ciyaarayay miyuugooda caligoo dawladduna ay noogu hoos jirto soo gala kolkaan iska caabinana soo gala lalaa suubaana nagu ahay miskiidka diinta islaamka ee aan ayaana suug nagu ahay qoriga suug rasaas ka waaweynna ma jirto dawladda dhaxaa noo jebinaysa dawladda dhaxaana soo rartay oo meeshana keentay barakacaa dawladdaa noogu wacnay waa awalba waan iska caabinayno oo iska dhabayno odacaliga waxa weeye shirki ugu dambeeyey dadkii ku jiraan ahayo ciidanku noo qabto wuxuu yidhi waa ni baryi jiray canfar ma raacaysiin oo berri baan soconay man litarakabsiiyaa maya baan ka nidhi canfar annaku weji aan ugu tagno malihin baan ka idhi sidaa baan hooyooyinkii gabadha uga qado waa kan baan ka idhi inankeegii baa la dilay iyadii baa la dilay gambacad bay wala sidaan wejigay canfar ku hor tagayaan dhibta iyo dhillada halkaasi ka dhacday qofkii u joogay noloshiisa inta ka dhiman inuu mararo dilaac ku dhammaysto ayay u badan tahay dadkii soo badbaaday ee birta iyo gumaadka deegaanka canfarta ka soo hadhay ayaa la keenay magaalada Mulli halkaas oo gabaad in ay ka dhigtaan loogu hakiyay ma garan kara dareenka dadkaasi waayo qaarkood ilinta ay iska masaxayaan waxayna waayeen cid ay jeclaayeen hantida ay tabcadeen iyo dhulkii ay ku dhasheen ku dhaleen kuna dhaqdeen adiga baan ku noolay dhowr sano dagaalkuna haysta dhibaatadaana dhowrkaas sanayna haysatana dagaalka maaragtay ciidamada militariga uma dhibta weyn iyo canfarta nagu haysta kadib 2 bilood waan xidhnay qayladaan meel walba waan gaarsiinay hadday madaxweyne tahay iyo hadday meel walba tahay qayladaanta waan gaarsiinay waana na xidhay cidna nooma soo galin cidna nooma soo baxay siina noo haystana subaxiiba waxaana soo weeraysay 30 nin baan soo weeraysay oo rasaasta ka dhameeya inta maadaama ay xidhan yihiin gurmadna u soo galayn rasaasna u soo galayn ka dhameeyana niye sidaasaan arrinta ku dhiman ciidanka shir baan la galay ninkan Aldiisu leeyahay shir baan la galay wuxuu yiri canfartiina uu la shiray annagina wuxuu killa lama liidino dawladna ma liidino waxba nii tari mayso maalkiini iyo dhiigiini iyo dadkiinaba badbaadiya ninkan canfarta raaca buu nagay kolka waxaan anagu killal baan nahay raaci mayno de haddaan warada raacnoon killalkiiba iskaga nimaadno aqbali mayna baan wax killalkii dilaana waxaan dhimashada inoo dhaanta arrinta dhimashada ayaa inoo dhaanta taariikh baad iga duubi doontiin wixii ni noole ininka yaqaana buu nagay maalin saddexaad buu dagaalka inagu dhaca maalin saddexaad iyo dagaalka inagu dhaca wixii dad maal iyo dadba way wada qurbaxeen naagaha dharka cadle raggii lahaa way dhammaadeen sidaa kadaalika walaala wixii alla wixii baabuur yaalay ee maaragtay gaadiid yaalay hadduu 5 bilood yaallo baktiisana waa la jiiday way qaateen wixii maal yaalina waa la qaatay dadka ilaa 200 ilaa 300 meelaha buu noqonaya naagta umusha ilmihii yaraaba saa looga jaxay sidii gaalka la saa looga jaxay iyadoo oor loo foola ayuu ilmuhu saa uga baxay ubadka yareera subaxii damba 2 bilood hamba 3 bilood gabadhii dusha ku siday mawdkii baan subaxii damba laga soo dhaxay hadda imka gabadh baan nala agjoogto waa tayr ilmaha yar mawdkii iyadoo caga bidhoon iyadoo caga bidhoonaysa laga soo qaaday iyadoo dhowr bilood waa tayr ilmaha yar mawdkii ka soo dhaxay uur 3 bilood ilahay kuwa kale sida ama 9 bilood bay gabadhu dusha ku siday ilmaha yar mawdka baa laga soo dhaxay in badan oo ka soo dhaxaanay baa jira hooyadii way dhimatay qoys waa la dilay oo ilmaha yar baa laga soo dhaxay ilmihi halka ka soo dhaxay kolka maaragtay waxaad arkaysaa islaantii oo dhimatay odaygii oo dhintay ubadkii oo dhintay qoys dhan baa saa u dhamay 5 qoys oo maaragtay odaygii u dhintay wiilkii u dhintay gabadhii u dhimatay islaantii way dhimatay sidii tigrayga aan ka daawanayna markii jundaha dadka meesha lagu guro kala ee la leeynay dadkii maaragtay tigrayga dhex yaalay sidii oo kale aan noolay tu ulyana iyo tu duqa iyo tu ilmo yar saasta madaxa lagaga jiiday wixii meesha ka dhacay wax fool xun baa ka dhacay dil wadar xasuuqada lagu sameeyay dadka oo loo aabayeelin caruurta la dilay
hooyooyinkaa la dilay odayaashaa la dilay dhallinyaradaa la dilay tirada odayaashu ay soo sheegayeen 250 ama 260 bay noqon kartaa haddaan anu 10 ku daro dadka waxa naga dhintay mawdkoogii lama qaadin oo cid Soomaali oo qaaday oo anagu ma qaadin anagii baa nafteeda la ciidamada la garan wixii hadhay hadda cunayso sidaa darteed dil xun baa ayaa meesha musiibo xun baa halkaa ka dhacday hayd oo aad u fool xun sidaa darteed baaq waxaan u dirayaa ta koobaad anu deegaanka waxaan ka codsanayaa waxaana dilay ishuwan bay ahayd deegaankii cafarta oo maxaan ku odhaaday liyuhaylkii leh maleeshaad aad loo hubeeyey leh kuwii kale booliskoogii leh mas-uuliyiintoodii oo dul joogto intaba yaa nugu weeraray ahayd kusbi baa ka dhacay magaaladii Gadmudug habeenkii markayna soo qaaday ma soo marno jiingadahana way furfureenay wax kale iska daa guriyaha wixii ku jiray iska daa jiingadihii ku wareegsan aqaladan way furfurayeen canfarsay u dhanayd baa timid ta kala markii duhurkii dagaalka ay dhameeyeen anagu kaambida wixii hadhay ku cararay qofna guriyaha dhexdooda ku jiro isla markiiba madaxweynahoogii baa yimid la yiri xogtaana halkaa bay ku baashaalayeen isagii oo guul weyn bay canfarta u soo hooyatay sidaa darteed wixii ku jira ciidamada sida laga sheegayna waa ciidamadu iyaga qudhadooda way badbaadin lahaayeen dadka laba zuuba meesha joogtay ahayd mayna badbaadin gacan kale ku jirta ciidamada ayaa la oran karaa caalan dadka inta u badani federaalka ku dhintay kaambidii xeeradii federaalka ay ku dhintay sidaa awgeed anu waxaan baaq u dirayaa dawladda deegaanka Soomaalida waxa odayaashu ay soo sheegayeen waa wax dhab ah dadka barakayaasha sidii guriyoogii loogu celin lahaa guriyoogii loogu dhisi lahaa hunguriga looga dhabi lahaa dawladda waxay u taalaa caaqilka Soomaalida iyo maalqabeennada Soomaalida ay u taalaa shirki ugu dambeeyay dadkii ku jiraan hay'ad ciidanku noo qabto wuxuu yiri waa ni bari jiray aan far mar raacaysiin oo bari baan soconay man li tarakabsiya ma yaban kan aan far annaku waji aan ugu tagno malihin baan ka iri sida baan hooyooyinkii gabadha uga qado waa kan baan ka iri ina keegii baa la dilay iyadii baa la dilay gambacad bay wala sidaan wajigay aan far ku hor tagayaan halkeenad nalada annaku waan xidhannahay qofka xidhan xal lama weydiiyay dabada looga taliyo halka cidii xidhataa laga doodoona waxa weeyin hadii ay arintu annakii xidhnayn xal keena aadna leedahay nabadii caana iska soco halka lagu idmada iska tag annagana hadii sida gacantana noo mariyay gabadh yar garbaciisa ka hadho waji ay canfar ku hor tagta malihin oo ilmahaasi xagga waraabaha inay u roorto booyina xagga canfarta inay u roorto lama arki karayo sheekad bari toolaad odhanaysiin shiihaala koronaalkii muxuu ilahaa oo xasuusanaysiin waxbaa dhow oo dhalaya iniguna nigu dhici ya taasaa niga hor jooga ayuu yidhi xaggaabaad eegtiin buu yidhi oo Soomaalida xaggeega ayaad eegtiin Soomaalidu may wax nii tarta intanoo dhabbaad xidhan tihiin ayuu naga yidhi war 3 goor baan dhimanay kol dadkiiba ilaa 4 sano malaha canfarta ka maqana 4 sano ba qawda baa la hayaa daraar la dhimanin ma jirto aakhirtaankii ilbaabka kolkii naga xidhay noo bilaabantay dibta ugu culusay kol waan dhimanno gaajaana laysa kol waan dhimanno albaabadana noo xidho dad qof dabayba waa lagu gurman jiray oo wixii dhiman hadintay qofka aan doonana la oran jiray dadka yagii aan isku haleynay gurmad waan ka weynay anna koo xidhan oo gaajana duubtay Itoobiyaanku naqulaaminayo ayaan gurmad walaalahay ka weyn haddana ilaahay baa qoro waa qadarkiis waxaan ka soo barakacnay garbaciise ayaan ka soo barakacnay halka baan ku dhimanay ciidamada makaakaliyaha iyo canfarta waa mid nin kale la runta nooga sheegi jiray ninkii baa la bedilay waxaana dilay adiisu ninka la yiraahdo iyo maxamed karayo ninka la yiraahdo baa na dilay qoryaha intay doonayeen isbay nooga gurteen intii ay doonayeen canfartay siiyeen sidaa baa hortayda looga qaatay qorigaan u dhiibnay sidaa baa looga qaatay wiilal canfaraho
awood lahayna dharbaaxa ka rujiyu ka qaatay annaga nin Soomaaliya hadduu la hadlo halkaa buu ka soo boodaa ciidamada Itoobiya markaa kale ya nin Canfareed hadduu la hadlana hoostaysa u yidhaahdeen ma waddanka Itoobiya uma sidaan dirayska Canfar bay u sidaan waxaana dilay waa iyaga waa nidaafacayna bay afka ka odhanayeen lacag bay naga qaataan lacag baan siinaynay anu maanta nima eegayo dee haddii aad diideen Canfarta raaca waan kaan idhi haddaad diideen nima eegayo halkaa baad ku dhiman doontiin maalkiina waad waayi doontiin xusulladaad ka ooyaysiin anna waad xasuusan doontiin buu yidhi dardaaranka waxaan nidhi calan baan hoos joognaa calankan ma Canfar baale mise Itoobiya hale baan calanka Itoobiya laab calanka Itoobiya ka Canfarta u noo daayada una hadlaysa ma laabayo uma joogaan Itoobiya waddanka qarankeed difaac ma difaacaan Canfar bay difaacaan waan difaacayna intay yiraahdeen rasaasta cirka waan iyo annagana saan noogu soo jeediyaan inagu laayeen waxaan ka soo barakacnay garbaciisa meesha la yiraahdo 250 qof way naga dhimatay halkana 700 oo qof baan ku soo gaaray markuu saddex cashka noo qabtay shirka ee wala diidnay ee kilil baan leenahay annagu carfaro qayb nagu dhicin ma raacayna nidhi ashada saddexaad wixii ina dhimanaysi waan garan waan in dili dad ma lihdino odaga ogaaskee dil dhow fadhiyeen waxba nii qaban maayo Soomaaliya fadhiyo kilil waxba nii qaban maayo ku Mustafa madaxweyniin waxba nii qaban maayo dadka haddaad raaci weydeen oo maalkiina iyo dhiigii badbaadin weydeen oo qasr Canfar ku noqon weydeen inaad dhimanaysiin ba halka ay nital waa dibay kolka wixii nii bixina inaad igu mas'uuliyadood ma korneelku uu noo sheegay annaka diidno bin ordintii inaad baabaaysiin waan ogahay buu waan baabin inaad iska raacdi baadni karabuyi ma raacayna nidhi waana galay dabadii subaxnina nagu bilaabay afarta goor naga joogsaday ummadda inta la xisay nin iyo wixii dhuufays dadka ay ku jiray kolka u dhamaaday xabadu u dambaysay lixdii ay qor xabadu shantii iyo barkii ay xabadu ka godan dadkii u dambaysay halkii baa lagu laayay qofka ku baxnayna waa qof caymado kaambidi iyo biskiilka kala galay baan noqon kaambidi stare guudka ciidan ku joogo sidaa darteed dadkii ciyaalkiina waa la suuqay dumarka imika dhasha laga suuqay laga soo guray kuwa yare laba bil 40 cisho u joogina way jireen 5 qof imika dadka hooyooyinkood la laayay dusha lagu sheeshan ka yareer waan garan imika kolka qof aan dib adduunka dad iyo duyo wixii gad dadka kolkii la soo bixinay kuwa miskiidka ma kuwii kala dhan wixii ilmauna ka roon uu dhawato dhan waa halkuu baa loo joogsan madaxa uu baldhabi madaxa uu mawdkooga sabaalka isku dul socda halka xirada u badnaato federaalku ahaan jiray halkoor yaa rag dadka badankiisa lagu haasuuqay naagii dadka sidaa darteed dawladda waxaan ku codsanaynaa annagu in la dhinto dhib dhacday dadka siba waa og yahay waddankeega inaan noo rido wax waddankeega noo gaari kari ma jiro waana waddanka Soomaalida ina waddankeega noo rido inay ilaahay daawada la garab gal waddankeega noo rido dhulkeega nagu cisho dawladda Soomaalida ayna garab qato waddankeega noo ridnaan ku dal jira wixii kalena dadka meesha soo gaadhina mawd ma taliye waxay u faleesheeday u taala saarif u siinaysa si arad u siinaysa u kaan qabanaysa taanayda u taala dhulkeega noo ridaan leen waa ka tagaan maalinkii noo keenay guddiga maxay ahayd federaalka ay yimaadeen ee magaalada la xasuuqay ee qoryahayagii la gurtay ee hantideedii la gurtay ee qoryihiin halkaan naga xiriyay waxaa yimid guddi ay hogaaminayso naag la yiraahdo Burtuqaan oo dawladda federaalka ay soo dirtay waan ku cabarnay waan ku ooynay qoladii federaalka ka imatay waxaan ku nidhi dawladdii federaalka haddaad tihiin annagu dad Soomaaliyeed baan nahay aan ciidankan meesha jooga waxa weeyaan ku Canfar u shaqeeya kuwan koroneeladii waa Canfar dikada markay kolba meel soo dhisaanba kolkaan ka hortagneen hal dagaalamnaa ka cirisa aan ilaaho joogsada meesha waa istiraatiiji waa Itoobiya duunigeegay oranayeen annaka kicinayna kolkay dhufeysay badan loqoteen 7 amba 2 toddobaad waan tabino war baan sugaynaa si noo hayaan kolkii dhufeysay la jeexdana ee Canfar meel kasta laga keenana waan kari weynay iska dhaba un bidhay hadda daba jeex iyo la shishika un baan noogu rakibtaayo halkee uma bagaaraysi halkii haddana ka joog waa la soo durkiyaa sidii ay u soo wada waa ciidanka waxa sida u soo wada 70 kiilo baa laga soo qaaday xaggana 50 kiilo baa laga soo qaaday sidii loo soo waday labadii kaabadood ee magaalada yaa la keenay markaa guddigu noo yimid ragga ariga qaadaya wax laynaya ciidanka ayuu fadhiyaa halka bay canjeero ku siiyaan ariga magaalada ka dareera ariye baadiya lagu qabsaday
waanu sheegnay guddiga halkaa baa lagu laayaabaan golxad waana naga qaaday qorina waana naga qaaday xitaa mididii xawaashka ee dheriga noogu korniyay qaadeen baan habeenkiina ilbaabadan sidaa u haynaa baan nidhi oo ma seexanno dee guddigii federaalka ka yimid haddaad tihiin dad Itoobiyaan aan hayna qaado oo dee meelna mariyaan haddaan Itoobiyaan hayn haddii kala ciidankani waxba nooma qabanay ciidankayga Soomaalida ha noo soo galo marka way ka hadashay gabadhiisi waxay ka tidhi labadaa koroneel yaa loo raaci hadduu qof canfari hadduu magaalada qof ku dilo hadduu kabaabiga aray ku qaado iyagaan u raacinay daaradda seexday tiri kolkaa waxay yidhi annagu rag mas-uullo aan nahay sharafteedaan ilaalinaynaa inay annaka dhibna qabsato ma rabno daaradda seexda canfarna ma soo galayo markii dambe maxaa dhacayna haddana hiriirkii 3 dariiqoo ahayd inaan 3dii dariiq haddana noo furaysto markaa mid baa haddana noo furay rabadaankii kadib baan baxnay waxna noo soo galeen kiina imikaa la xidhay isagoo xidhan habeenkii canfartu way cabsoonayso way soconayso ciidanka makalaakaliyaha tegaya halkaa habeenkii uu soo aacay kolkaan aanay wuxuu yidhi xabad ha ridina waxna ay waa max xabad hadaad ridiin magaalada kolkaan suwar ka qabanno ayaad qofkii soo bixinaysiin iyo qorigiisi haddaad soo bixin weydiina waxay galaafanaysaa qoryihiina kala magaaladan gacanta ula tagaynaa kani ku soo naay muxuu yahay inuu ina wallaahi inaan been ka sheegin ummadoo dhan way ogtahay shir baa sidaan ugu yidhi marka xabadii waa gurcuduku boggaan u jiifna waraabaa ku hormaray dacawaa ku hormaray soo mawdkii dadka baratay dee waan ridnaa maxaa lagu ahay waxbaan aragnay qof baan nagu soo socdo waan aanay sidaa baan ku yar barbaadin waxa weeyin imikana intay odigu sheegeen ee canfarta raacada waa runtooda waan ku diidna waxaan annagu halkaa baan ku dhimanaynaa waxaan maqli jiray caruuri col iyo abaarbamoog kuwa yaryar oo aabbahood iyo hooyada toona noolayn ayaa xeradaasi aan kula kulannay laakiinse iska ciyaaraya maadaama aysan waxba kala garanaynin xasuuqa ka dhacay garbaciise waxay dadku noo sheegeen inaan loo aabba yeelin Soomaali iyo cid walba oo halkaa deganayd waxaan halkaasi deganaa dad walooyin ah oo deegaanka Amxaarada ka soo jeeda iyakana waxaan noo sheegay oo dadkii mullaan kula kulannay noo xaqiijiyeen in dhegta dhiiga loo daray qaarkoodna waxayba ku sugnaayeen xeradaasi kooxda argagixisada agaagumo ee deegaanka canfarta iyo kuwa garabka siinayo ee ciidamada liyuga canfarta ah dhammaantoodba waa dambiilayaal xasuuqani dawladda deegaanka Soomaalida waa ay ka hadleen hase yeeshee ma jiro wax war oo ka soo baxay dawladda dhexe marka laga reebo war saxaafadeed uu soo saaray komishinka xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya kaasi oo sheegaya in dil boob dhac iyo waliba isku dhac uu ka dhacay magaalada Garbaciise hase yeeshee aanan lagu xusin Garbaciise iyo dhibkii ka dhacay isirbeegsigii iyo waliba isirgoyntii dadka lagu sameeyay yaba tan kala haydarkiis kolka arinta waxaan leenahay kilalka annagu maanta hungurina ma doonayno maaragtay baahi hungurina uma jeedno waxaan leenahay dalkayga hana noo rido dalka Soomaalina hal la rito annagu dadna naga dhamaaday ubadna u dhamaaday naagina way dhamaadeen laakiin Soomaalidu dalka ay dal u yaala Soomaaliya waa hal loo rido maaragtay qayla Daniel baan loo sano canfar weyn bay ku samaysteen xagga alatirina way ka soo gashadeen jabhadaha oo maaragtay qolal la yaaho oo badda cas la yaaho xaggaaba alatirina ka soo gashay ayaa la yaabal soo gashay kuwa kale maaragtay guguma layana way jiraan waxa dadka saa u leeynay waa dadka labada jabhadood way tigrayna uu ku jira maaragtay ciidamada militariga
iyo gugumaha iyo intana way isla xidhiidhsan booliska canfarta kuma jiro liyuuba uu ku jiraa habeenka dhow waxaana leynaya ugu dambaynta waa liyuuga booliska canfarta wey dilayska waa laga dhigaa badayaal dilayska dikada maadaama ay baabuur marayaan shisheeye marayo dilayska waa laga dhigay annagaa garanayna kabaha wayaalaha maaragtay fudud ayaa la siiyaa dilays ma wataan macawis bay wataan budaqan nagu dhac iminka miskiidkan anigu ku jiro on gallay miskiidka bambadii iyo baasukii wuxuu ka soo dhacay dayl bay lahay daylkii miskiidka xidhnaa baasukii laga soo tuuray daylkii buu ka soo booday booyad buu ku dhacay booyad buu ka booday baarleed buu ku dhacay waa baasukii bambadii miskiidka laga soo tuuray dusha laga tuuray gudaha inoogu soo dhacay dadki saddexna way naga baktay ma garata waxa saa noo galayna budaqan anigu ayna waa dabajeex iyo janeefar wax kale ka ma jiro bambo iyo dabajeex iyo janeefar saddexda weeyaan annagu waxaan leenahay iyo dhishika afartaa baan anigu ahay ka uu hadhay waxa la gowracay amxaarna male wixii galmali ku noolaa soomaalina male qof walba birtaa loo taxay qooshka weelkii qooshka waxa la geeyay wadanka afarta la geeyay masara waxa la geeyay samara boob mulaqadii la geeyay gaadiidkii waa la qaaday motoodii waa la qaaday muntadii waa la qaaday dadkaana maanta baahi shamiishna ma wadano garadna ma wado waxaan u mahad celinayaa maanta qabalahan mullu si fiican buu noo soo jeeday qabalahan mullu si fiican buu degmada mullu si fiican buu noo gacan ilaahay dad badan bay gowraceen waxay ku sababsanayeen galmadu baa la taaleen waxa urqunka na siinayay raashinka noo keenay labada biloodan xidhnayn ayaa raggii nala yaaleehay wal raashinka ayran cunayneen kulanayna labada bilood raggaas hawaas tagayay waxay ku soo qorayeen gawaani baastada iyo bariiska iyo shakorta gawaani bay ku soo qorayeen iyo makati bay ku soo qorayeen haday galmalu yahaan waa lala dhaadhacay cadhidha keela laga xidho lagu dhaadhacay maadaama aan halka ku naga nooleynayeen daraadood baa ragga loo sababsaday waradahan maanta aan nimnana si fiican bay noo ka taagan galbeedka gobolka City lama yaqaano goorta ay soo gabagaboobi doonto dadkuna dhiilada dhimashada dhaawaca iyo waliba urdooxa ilaa bidoonaan garbaciise iyo cadayti waxa ka dhacay xasuuq aan loo aabiyeelin taariikh madow xilli madow amin madow murugo ciil iyo hooskooy waa dareenka dadka garbaciise ka soo qaxay dadkani cadaalad ayay rabaan saysa ku helaan inay adag tahay ayay u muuqataa limbuko looma boogadhayo haddaanad caafimaadkiisa baxnaaninaynin